المصريين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaanu xarunta commissionka maanta isugu yeernay bahda media oo maanta ay bishu tahay 10 December 2015 aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa imaanshaha noo imaateen ee soo ajiibteen dalabkeygii si aad la socoteen baryahanba waxaanu ku guda jirnay hawlihii commissionka doorashooyinka qaranku ku guda jiray hawlihii diiwaangelinta codbixiyaasha taasoo ah shaqo aad u ballaaran baaxadeedana leh dhalinyaro inakoo kala aana culays fara badan gelin karta hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo hadday tahay xagga farsamadaba hase yeeshee haddaynu la kaashano ilaahay gamcahana isqabsano aynu kaga bixi karno si hawl fudud ama hawsha culus aynu ka bixi karno nidaamka doorashooyinka iyo diiwaangelinta caalamka oo dhan marka loo eego ma aha mid ay ka maqan tahay dhibaatooyin hor yimaada ama caqabado ka hor yimaada si aad la socoteen baryahan dambaba caqabada ina hor yaalay kuwaasoo ahaa marka la eego dhinaca dhaqaalaha waad maqlayseen in xagga dhaqaalaha wax iska ka yara dhimeen tii guud ahaan way noo soo dhammaatay waxaanay ku soo dhammaatay oo markaanu qiyaasno 90% in hadda aynu hawshii geli karno oo aynu toos uga gudbinay caqabadii xagga dhaqaalaha hase yeeshee waxaa loo baahan yahay in hawsha baaxadda leh ay nagu soo food leh la galo qarankuna guud ahaan isberbertaago loona sameeyo ama aynu samaysano kuntakiijis dhaqaale oo dhaqaalaha yar aynu helnay aynu isku filnaysiino si aynu hawsha uga gudubno guud ahaan waxaanu ka codsanaynaa qaranka ama madaxda qaranka hadday tahay madaxda xisbiyada dowladda iyo shicib weynaha Somalilandba inay isberber taagaan kaalintoodana qaataan si aynu hawshan u suura gasho qabsoomideedu taasoo ah ta diiwaangelinta inoogu soo socota iyo doorashada ka dambaysa si aynu u helno diiwaangelin hufan xor ah xalaal ah oo noqotana mid taaba gasha sidaan horeba idinku sheegnay hadda waxaanu guda galnay diiwaangelintii oo diyaar garowgeedii inoo bilaabmay ugu dambeeyay waxaanaynu gelaynaa gobolkii ugu horeeyay inaynu diiwaangelintii si dhaqso ah uga bilaabno insha Allah kaasoo noqonaya gobolka Togdheer oo sidaad ogtihiin ah gobolkii aan u astaynay in lagu bilaabo diiwaangelinta qaranka Soomaaliland waxaan ilaahay mahadii ah inaynu noo suura gashay inaanu soo dhamaystirno dhammaan agabkii looga baahnaa in diiwaangelinta lagu galo hadday tahay qalabkii electronic ah ee lagu galayay hadday tahay agabkii kale ee stationary-ga lahaa transportkii ee lahaa wixii allaala wixii qalab aynu uga baahnayn inaynu diiwaangelinta ku hirgelino waxa kale oo aanu dhamaystirnay heshiisyadii qandaraasyadii lagu galayay gaadiidkii ka qayb qaadanayay diiwaangelinta waxaanu kaloo dhamaystiraynaa oo aanu u ballansanahay haddii ilaahay nafta inoo daayo sabtida isgaarsiintii oo labada shirkadood Telesom iyo Somtel inaynu la saxeexano iyagana inay isgaarsiintii kafaala qaadaan waayo waxaanu ognahay isgaarsiintu aynu ku galayno diiwaangelintu waa online waxa la yiraahdo waa toos waxay toos ugu xidhmaysaa serverka halka inoo yaala ee hadda xarunta inoo dhex yaala iyo goobta diiwaangelintu toos bay isugu xidhan yihiin si loo yareeyo amaba looga dhigo zero in qof isku dayo inuu mar labaad iyo mar saddexaad isdiiwaangeliyo qofku isagoo fadhiya ayaa computerka qabanaya
wuxuu soo gudbinayaa xogtiisa serverka online baana shirkadahaas ugu siinayaan taana waanu hirgelinay waxa inoo hirgalay oo iyaduna aanu maxayday fuelkii gaadiidka ayaa isaguna inoo hirgalay oo qandaraasyadiisii deynay wixii qandaraas nagu xidhnaa ee ku xidhnaa diiwaangelintu way naga baxeen hadda waxaanu diyaar garownaa waa diiwaangelintii oo gobolkii Togdheer ka bilowno waxaanu idin sheegaynaa oo shacabweynaha iyo dadweynaha Soomaaliland u sheegaynaa in tijaabo aanu soo sameynay 2 goor hore ay noo hirgeliyay qalabkanu inaanu qofku 2 goor ku noqon karin taasuna waa mid aan uga digayno dadweynaha iminkana waxaanu gacanta ku haynaa oo iyaduna dhameystirin oo ah shaqaalihii goobaha diiwaangelinta inooga shaqayn lahaa kuwaasoo imtixaamadii aanu ka qaadayno haddana ay ku maqan yihiin 2 commissioner gobolka Togdheer oo ay soo diyaarinayaan imtixaamada dhalinyaradii galeysay in imtixaankii laga qaado waxaana sida caadada inoo ah aynu ku talageli doonaa in imtixaanka dhalinyarada ka soo baxaysa loo eego xirfadooda aqoontooda iyo kartidooda iyo daacadnimadooda waxaanaynu maxay tababar siin doonaa marka ay imtixaanka aynu ka qaadno waxaananu inta badan la kaashanaynaa jaamacadaha dawliga ee gacanta dawladda ku jira ayaynu ka qoran doonaa dhalinyaradaas run ahaantii haddaan halkaa ka gudbo oo aan u gudbo in dhawaanahan soo yara baxbaxayay waxa dhacda mararka qaarkood waxaa jira dad si gaar ah wax u doonaya oo uga doona komishanka doorashooyinka qaranka oo waxay rabaan markay waayaan si qaldan wax u sheega taasoo aan laaqin ku ahayn ama ku habboonayn komishanka doorashooyinka qaranka sidoo kale waxaa dhacda in yar oo ka mid ah saxaafadda ay tushuus ku furaan diiwaangelinta iyo howlaheeda iyo komishanka waxaan ilaahay mahadii ah in sanad kadib iyagoo komishanka doorashooyinka qaranku ku howlgelayay gaadiid kira ah oo howlihii ay soo qabteen oo dhan ku soo qabteen kuna howlgelayay gaadiidka u gaarka ah kaasoo ay u hibeynayeen qaranka shaqadan ay u hayaan inay hadda soo gaadheen gaadiidkii lagu howlgeli lahaa laguna fulin lahaa diiwaangelinta iyo doorashada soo socotaba ee 5 sanadood inoo shaqayn lahaa inayna soo gaadheen looguna talagalay inay howlahaas fuliyaan lacagta gaadiidka inoo yimi waxay ka soo baxday gaadiidkii aan ugu nimi komishanka doorashooyinka ee ay xaraashtay guddiga qadaraasyada qaranku lacagtii ka soo baxday oo waliba lagu kabay madaxweynuhu ku kabay jamhuuriyaddu intii ka dhinnayd ayaa gaadiidka lagu soo iibiyey waxaana wax laga naxo ah in la sheego in komishanka qaranku deymo fara badan lagu leeyahay oo la hortuban yahay shaqadiiba maanu bilaabine hor maanu galnay deynta la sheegayo taasuna waa wax laga naxo waa wax laga yaqiiqsado oo aan ku habboonayn in dhagaha shacabka la maqashiiyo annagoo dhawaan soo deyn doona waxqabadkayaga ama waxqabadkii aanu qabanay muddadaas sanadka ah iyadoo habaysan oo duuban oo idinka idin horgeeli doono idinkuna aad wakiil nooga noqon doontaan inaad u gudbisaan shacabka Soomaaliland insha Allah bismillaahi kariim dhamaystir iyadoo ah waqtiga aan inaga fogeyn waxaan idin soo gudbin doonaa waxqabadkayagii oo maqal iyo muuqaal ah maalintii aanu qabanay oo ahayd 8 December 2014 oo sanad laga soo wareegay oo ku faraxsanahayna in wax hawl baaxad wanaagsan leh
inoo qabsoontay insha allah biidnillaahi kariim. waxaan jeclaan lahaa inaan ka codsado dhammaan xukuumadda, golayaasha qaranka, xisbiyada, bulshada, culummada, aqoon-yahanka, dhallinyarada, haweenka iyo bahda cadaaladaba in loo baahan yahay in gacan buuxda lagu siiyo shaqadooda komishinka doorashooyinka, dhammaan howlwadeennada komishinka doorashooyinka qaranka ee heer qaran, heer gobol, heer degmo iyo heer gooboodba, maadaama shaqadii inoo bilaamayso, si ay u gutaan waajibaadka qaran ee loo igmaday, lagana ilaaliyo wax kasta oo ku keeni kara hagardaamo hawshan qaranka ee aynu gacanta ku hayno. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan bahda saxaafadda xorta ah iyo ta dawligaaba. waxaanan wada shaqayn naga dhexaysaa hay-adaha aanu la wadaagno shaqadan ay ka mid yihiin xisbiyada qaranka, dowladda, labada gole, golaha guurtiga iyo golaha baarlamaankaba, taasoo aanu ballan qaadayno inaanu wada shaqayn fiican ina dhex marto, hadday tahay xukuumadda, hadday tahay xisbiyada, hadday tahay ururada bulshada, saxaafadda iyo beesha caalamka oo inaga caawisa xagga dhaqaalaha inay inoo hirgasho dimuqraadiyadda Somaliland. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.